sida awgeed marka in quraanka akhrintiisa aan ku dadaalno waxa weeyaan waxyaabaha keena ay ka bitahay in quraanki Allah subhanahu wa ta'ala hujraanki oo nabi Muhammad alayhi salatu wassalam oo ka sheegtay وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا ربي يوتلكي قرآنكي ويكهاجرين أو شيء لقى هاجر أو لسقطك أون للدنينين أون دل يجلين أي كدكتين إن كبد بعد تاس أي نون قنيسة قرآنك الله سبحانه وتعالى إن أخرنه دائما وأبدا رمضان وغير رمضان قضب كباد وتعيد والتلاوة قيب تلاوات والسماع قرآنك إلا دقيسته والتفهم قرآنك إلا فهمه ومعاني ديس قرآنك قفك ودقيسته ربي قال سبحانه وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون قرآنك هدي الأخرية قرآنك إلهي سبحانه وتعالى دقيسته أو دكارعيه هدي أتسدى سميسانا محين قنيسا نتيجدي محين قنيسا أبال مرنتي لعلكم ترحمون تحريص إلى الشام أياد مدنتين قرآنك مرك إلا دقيسته oo qaariga markuu akhrina si fiican loo dhageysto oo waliba la dhagra raaciyo oo la buuqin waa shay matluuba ajaladihi laga dhageysto waa matluub youtube laga dhageysto waa matluub ay shay idaacadihi baxay in laga dhageysto waa hakada marka quraanka kariimka in la dhageysto qofka mu'minka waliba isqa maanta tusaale ahaan qof aad kugu weyno qiimo agtaada kula haduu hadli maxaad sameynaysaa kaba soo qaad madaxweynaha dalka hadda maanta maamula isagoo wali muslim ahayn haddii halkan u yimaado khudba uu galo aad baa loo dhageysani oo cid fardaqaajin lama arko nin walba xulay bal madaxweynaha wuxuu sheegay hal dhageysto kitaabka Allah subhanahu wa ta'ala wa hadalki ilaahi subhanahu wa ta'ala rabbiga samaawaadkan uumay dhulkan uumay annagana uumay adduuniya aakhiraba rabbiga iska lahu milkiyo rabbigaas hadalkiisa weeyaan cid kale loo socdo adiga ayuu kula socdaa adiga ayuu ku socdaa kalaamka Allah subhanahu wa ta'ala cid uu ku socdo ama uu ku wajahan yahay cid kale ha u arkin umada kale oo muxuu arab iyo umada kale oo dhimata iyo nabi maxamed alayhi salatu wasallam kaligi iimaan adigan maqla adigan halkan fadhiyo ama maqli doona adiga ayuu quraanka Allah subhanahu wa ta'ala kula hadlaya markuu dhagraarici khayr baa lagu fari shar baa laga reebi waxba lagu waajibini waxba laga xaran yeeli umada hore oo badbaadisay ay ku badbaadan baa lagu sheegi umada hore oo halaagsamay sida ay ku halaagsamay baa lagu sheegi aakhira iyo nicimtada ayaa lagu sheegi wanaaga lagu gaarno waa lagu sheegi xumaanta iyo dhibaatada taal aakhira ayaa lagu sheegi wanaaga muxuu ahaa xumaanta ayada wixii lagaga fogaan karaa waa lagu sheegi quraanka Allah subhanahu wa ta'ala ma farratna fil kitab min shay wax kasta ayuu rabbi subhanahu wa ta'ala quraanka dhaxdigay sida awgeed marka qofka inuu ku dadaalo quraanka dhageysigiisa waa laga marmaan nabigeena sallallahu alayhi wasallam daraba fi dhalika arfa al-amthila hadith sahih aha nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri Abdullah ibn Mas'ud markaas wuxuu yiri iqra alayhi al-Qur'an quraanka gudul akhri markaas wuxuu leeyahay aqra alayka wa alayka unzil nabi allahumma adanka gudul akhrini quraanka adaa lagu soo dajiyay markaas wuxuu leeyahay inni uhibbu an asma'ahu min ghayri qof aniga aanan ahay inaan quraan ka dhageysto on ka maqlo ayaan jeclay nabiga sallallahu alayhi wasallam saas uu leeyahay nabigeena alayhi wasallam kadibna wuxuu bilaabay suurata an-nisaa ayuu bilaabay Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala warda كنيف من علما من أراد أن يقرأ القرآن كما أنزل قضا طريا فليقرأ على قراءة ابن أم عبد واتي ونبي الله صلى الله عليه وسلم قفك قرآن كسيدو كسو دغاي سغو فريشو سيدي ساينو اخري قفك دمعه اما دونا عبد الله بن مسعود سيدو اخريها واخري واتي ونبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود با نبي كدو اخري قرانك كدبنا الى كغارا فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ايضا الى كغارا فكيف نبي الله بل كورن اذا جئنا هديا لنمان من كل امه ummad la arkina markii aan ka keenno bi shahiid midku marqaati furo anbiyadi nabi aadam laga soo bilaabo ila nabi maxamed laga yimaado ummad kasta nabi ku marqaati furo markaan u keenna bal ka waran oo qiyaamo oo wax alla waxay sameynayeen inuu diinta soo gaarsiiyay inay ka diideen ama ay ka ogolaadeen ku marqaati furo ka waran wajina bika ala haula shahiidan adigana ummadan hadda nabi maxamed hada ku marqaati furi kuwan halkan fadhiyo dhageysani kuwii dhintay kuwa dhalan doona kuwii nabi maxamed alayhi salaam arkay kuwa aan arkin intii umada nabi maxamed gaaladooda islaamkooda cadaankooda madowgoodi qiyaamo kadibna adna aan ku keenno oo ku marqaati furto bal ka waran markaas wuxuu yiri xasbuk inta kugu filan Abdullah wuxuu leeyahay markii nabigeena eega alayhi salatu wasalaam fa idha aynahu tadrifan labadiis indhood wa ilmeynayaan ayuu muxuu yiri radiyallahu ta'ala anhu arda wa sallallahu ala muhammadin sallallahu alayhi wasallam marka quraanka in la dhageysto marka وهدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ومامور ربنا ونفر سبحانه وتعالى وطريقة رنت عجيبة هدي أنا اللي هلين القرآن الله سبحانه وتعالى قفل كان قنايا هاجرا لكتاب الله عز وجل